subax wanaagsan markii la dhegeystayaal dhammaantiinba 135 sano ayaa toddobaadkan laga joogaa markii uu bilowday shirkii Berlin ee sanadkii 1884 kaasoo qaar ka mid a dalalka Yurub ay ku kala qaybsadeen qaaradda Afrika si ay u gumaystaan. Haddaba taariikhda shirkaasi iyo wixii ka dhashay ayaa Nuur Bukhari waxa uu ka waraystay Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo baraka jaamacadda Minnesota buugaag iyo maqaalo badanna arrimaha Afrika ka qoray. shirkan Berlin lagu qabtay af-Ingiriiska waxaa lagu yidhaahdaa the Berlin Conference waxaana weeyaan qamaamkii reer Yurub ay Afrika iyo adduunyada saddexaad u qabeen ee lagu soo qamaamay si loo kala qaybsado xadad aan jirin bay ka sameeyeen way Afrika qaybiyeen mid walba qayb u qaatay xadadkii iyo maamul xumadii reer Yurub ay keeneen weli maantadaasi waxay ku haysaa farbaas qaaradda Afrika iyo adduunyada kaleba. markii Berlin la isugu yimid miis weyn iyo qol weyn baa la fadhiistay khariidadii Afrika ayaa meesha la dhigay qalimo ayaa lagu kala qaybsaday anaa halkan iyo anaa halkaas dadna dhulkii baa lagu soo qamaamay oo la degay khayraadkoogii dadkoogii la adoonsaday marka dibtii waagaa timiday weli dheefteedii ayaa lagu jira ayaan qabaa. waa gartay marka sida taariikhyahanadu ay sheegaan oo adiguba aad ka mid tahay shirkaasi wuxuu socday muddo 104 maalmood ah waana kii lagu kala qaybsaday Afrika sida hadda aad sheegtay. marka xilligaas dadkii Afrikaanka ahaa gaar ahaan hogaamiyaashii Afrika ee xilligaas ma ka warqabeen sidee ayay madaxdii Yurub ee xilligaas ay u bilaabeen qaybsigaasi kadib gumaysiga qaaradda Afrika? ka ugu horreysa waxa weeyaan wadamada Afrikaynu maanta naqaano may jirin mid qura oo sidaynu u naqaano jiray ma jirin. marka madax Afrika markaa jirta oo adduunka la socoto oo ka doodaysa waxaan ma ayan jirin walaal. Afrikaan maana markaas adduunyada saddexaad in badan ayaa sidaa ahayd. markii la kala qaybsaday cid u hadlaysa Afrika hayna jirin ugu yaraan 20, 30, 40, 50 sanadood dabadeed ayaa dadka Afrikaanku ambabarayaan in adoonsi lagu hayo. waayahay Professor Cabdi Ismaaciil marka Soomaali weyntii aanu naqaanay ka hor 1884 waatii ay wax badan isbedeleen marka sidee ayay u saameeyay qaybsigii shirkii Berlin geeska Afrika gaar ahaan dhulkii la oran jiray Soomaali weyntii hore ama Soomaalidii hore? waxa weeyaan khariidada Soomaalida dhulka Soomaalidu hay leeyihiin xad muu lahaan jirin iyaga iyo xagga galbeedka dadka Oromada ayaa qayb ka wada degi jiray oo dadku labadooduba ay qaarkood beeraley iyo reer guuraa ahaayeen laakiinse xad kale dhex yaali ma jirin. marka meel garabkeega ka hooseysa Harar ayuu hoos u marayaa dadkii ay wada degi jireen markaasi magaalada Hararna waa la wada deganaan jiray. xagga koonfurtana waxa weeyaan qayb ayaa dawladda Ingiriis ku qaadatay oo ku darsatay maxmiyadii kale. marka xadad aan jirin oo Soomaali aan kala qaybin jirin ayaa la kala dhigay. taas maantana dhibaatadeedii ayaa weli lagu jira. Afrikaanka kalena caankaa lamida laakiinse markii 60kii la soo gaaray 55 ilaa 60kii laba gobol oo isticmaalku haysto kii Ingiriiska waqooyiga loo oran jiray iyo kii koonfurta ee Talyaanigu haysan jiray ayaa garaadkoogii kordhay go'aan ku gaaray xadkii isticmaalku uu kala dhex dhigay in taariikhiga ahayn inay iska dhex qaadaan. laakiinse markii horumarkaa la sameeyey siyaasadda xumaatay darteed ayaa maanta waxaa jira in xataa maxkamadaha Ingiriiska iyo Talyaaniga gudaheegii Soomaali hoos u sii kala qaybsanayso oo dhiifteeda iyo dandankeeguna hoos u sii dhacayaan walaal. toddobaadkan 135 sano ayaa u buuxsantay markii uu shirkaasi u dhacay. wax badan ayaana isbedelay dabcan. marka maxay ka barteen dadka Afrikaanka ah gaar ahaan Soomaalida shirkaasi iyo dhibkii ka dambeeyay? haddaan Afrikada guud u soo qaadno waxaad moodaysaa in Afrika dadka caadiga Afrikaanka iyo dadka hanqabtaaga ama waxaan elite la yiraahdo siyaasadda ku jira waa in la kala qaybiyaa. dadka Afrikaanka meel kastoo aad tagtid waxay u soo hilowsan yihiin in ugu dambaysta Afrika oo dhan isku mid noqoto dawlad qura wada yeelato maamulo hoose ha jiraan. laakiinse markay noqoto arrimaha difaaca, amuuraha dibadda, amuuraha dhaqaalaha iyo amuuraha biyaada inay ka
si adduunka kale ay wax ula qaybsadaan. laakiinse qolooyinka siyaasadii mid walba meesha yaruu helay ayuu ku dhegsan yahay sidii gofanaha ilaa uu ku dhinto walaa. taasi waa afrikadii guud. soomaalina waa sidaasi leeg. meelahay soomaali ku nooshahay min NFD ilaa Djibouti ilaa Ethiopia ilaa waqooyi ilaa koonfur waan maray walaa. meel hanan arag soomaali inay u hilowsan tahay inay mid noqoto oy qaran noqoto oy hore u marto oy khayraadkaaga wareegto weli ma arag walaa. qolooyinka siyaasiyiintana sidaa kuwa afrikaankaba mid walba gofanahaasuu noqday meel yar buu ku dhegsan yahay. iminkana dee waxaaba timiday intii weyneyd inta hoosta uga soo dhaco jees kuwa madaxda sheeganaya hay jees madax ka noqdaan oy meesha noqdaan xarwalwaal haddii lagu tilmaamo waxa. ugu dambeyntii xaggee ay soomaalida ay ku socdaan iyo guud ahaan dadka africa ay kaga socdaan 135 sano kadib? dee afrikaanku isku wada mid maaha walaal, waa la kala tegey. waddanka Mauritius la yidhaaha badweynta India ku yaala iyo Botswana iyo imikoy Rwanda soo kacso iyo South Africa waa qolooyinka tegay iyo waddanka Tunisia la yidhaahdo mooda si dardar cusub inuu ku jiraan. qaar ka dambeeyana way jiraan oo ayagoo Kenya ay ka mid yihiin iyo qaar adduunyada jarkeegiiba ka dhacay oo Soomaali ka mid tahay maanta. marka waxa weeyaan hadday dadka afrikaanku ama dadka Soomaalidu guud ahaan dadka rayidkiisa abaabuli waayaan oy caddaynsan waayaan waxay dantoodu tahay, waxaan u malaynayaa 100 sannadood dabadeed in taariikhdan mid ka hooseysa la haabhaaban doono oy noqon doonto qamaamkii Yurub ay kusoo qamaamtay teedii labaad inuu soo noqon doono walaa. kaasi wuxuu ahaa Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo baraka jaamacadda Minnesota buugaag iyo maqaalo badanna ka qoray arrimaha Afrika. waxa uu khadka telefoonka ee magaalada Minneapolis ugu warramay wariyahayga Nuur Xasan Nuur Bukhari.